farxad weyn bay tahay inaan markii labaad ku soo noqdo magaalada Berbera anigoo furaya maalintii hore dhagax baan dhigay laakiin anigoo maanta furaya mashruuc la dhameeyey oo 5 megawatt iyo 12 kilomitir point 2 oo xadhkaha electric qaada oo kordhinaya tamartii iyo awooddii electric Berbera waa soo dhaweynaynaa shirkadda waanu mahadnaqaynaa waana ka rajaynaynaa maalgashi kale oo fara badan hadday leydhka tahay iyo hadday sectorska kale tahayba waxaa kaloo iyaduna sida halkan laga caddeeyey wasiirku ka caddeeyey meeyarkuba waxay noo bilaabmay mashruucii aanu maalintaa dhigaynay dhagaxa oo ahaa $20 milyan oo wax weyne ka bedeli doona tamarta ay u baahan tahay magaalada Berbera iyo mashaariicda faraha badan ee kusoo kordhaya ay warshaduhu ka mid yihiin Berbera waa magaaladii ictiraafka marka dunida oo dhamina maanta way xiisaynaysaa Berbera waxaan leeyahay hadday mashaariic tahay hadday warshado tahay hadday maalgashi tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay attraction badan ama soo jiidasho badan samayso leydhku maanta wuxuu kow ka yahay nolosheena berigii hore miyi baynu iskaga nooleynoo leydh maynaan baahnayn annaguna markaanu ardayda ahay faynuusyaanu shidan jirno leydh lama baahnayn laakiin maanta qofku leydhkii kama maarmo insha allahu dee leydhkii Berbera maanta waddanka iyada ugu jaban waxaan rajaynaynaa cali waxaa ku yihi xalay baanu taragno marka dambayso mashruuca waxaan doonaya inaad sii jebiso leydhka haddii la yidhahdo maalgashatada waanu mahadnaqaynaa garabkoodaanu taagannahay wixii aan la qaban karno dalka Somaliland diyaar buu yahay gaar ahaan waxaan si diyaar weliba uga mahadnaqaynaa dalka Imaaraadka iyo ganacsatadiisa iyo xukuumaddiisa iyo shirkadihiisa runtii oo ku dhiiraday 10 sano ka hor inay halkan maalgashadaan taasi waxay soo jiiday in dunidu aaminto Somaliland waxaana proof garaysay inaynu si wanaagsan ula macaamilnay ciddii maalgashay Somaliland aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan hubaa haddaynu gacmaha isqabsanno horumarku laftigiisu qayb buu ka yahay ictiraafka markuu nidaamkeenu wanaagsanaado nabaddeenu wanaagsanaato midnimadeenu wanaagsanaato berigii Berberay ugu dambeysay waxaan ku yidhi idinkuna nabadda iyo midnimada ka shaqeeyana ictiraafkii baan doonaya marka ictiraafkii waan soo helay idinkuna nabadda iyo midnimada adkeeya haddii la yidhaaho. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.